gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Somaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera ayaa maanta si wada jir xadhiga uga jaray Amal Bank oo laga hirgeliyay magaalada Berbera. Munaasabaddan xadhiga jarka si heersare loo soo agaasimay isla markaasina ka qabsoontay Hotel Berbera Beach ee magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee bangiyada Amal Bank ee Somaliland, ganacsato, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horeyntii waxa iyagu halkaasi ka hadlay maamulaha qaybta Berbera Saciid Maxamed Ismaaciil iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee bangiga Amal Cabdifataax Ismaaciil Daahir waxaana ka waramay faa'iidooyinka uu leeyahay bangigan bulshada ku dhaqan magaalada Berbera iyo sidoo kale adeegyada uu qaban doono. kelmadayadu waxay daarantahay anaga maamul ahaan magaalada Berbera inaan soo dhaweyno dadka faraha badan leh martida ah iyo madaxdaba sidoo kalena aanu mahadnaqno intii soo ajiibtay invitationada aanu geynay iyagana inaanu mahadnaqno. qodobka labaad oo anagu kelmadayadu tahay waxa weeyaan inaanu macaamiisha faraha badan leh inta badan ku xidhnay Amal Bank aan maanta ugu bishaareynay inay maanta wixii ka dambeeya aan adeega si hufan ugu shaqeyn doono oo naga heli doontaan shaqo aad ugu macquul ugu qanacdaan. run ahaantii farxad weyn bay maanta noo tahay inaanu daafurno Amal oo ka daafurno gobolka saaxil caasimadiisa Berbera xaruntan oo noqon doonta xaruntii 15aad aanu ka hirgelino Jamhuuriyadda Somaliland waana gobolkii lixdii gobol ee waaweynaa xaruntiisii marka waa xaruntii 15aad oo maanta ka daafurayno gobolka saaxil. runtii farxad weyn ayay noo tahay ina farxadan la wadaago boorka bangiga Amal farxad bay u tahay shaqaalaha weynaha Amal Bank farxad bay u tahay macaamiisha bangiga Amal in gobolkii maanta Amal gobolkii saaxil laga furo farxad bay u tahay. waxay sidoo kale farxad u tahay gobolka saaxil iyo degmada Berbera in bangigii loo keeno maanta halkan. Amal iyo suma cusba gobolka saaxil sida xaajigii u dambeeyay ka dhawaajay xawaalad bay muddo 18 sano halkan ka shaqeynaysa xawaaladda Amal Express. dhawaanna waxaanu halkan ka furnay qayb trader oo la yiraahdo Amal Trade oo raashinka aanu keeno aanu soo dejino raashinkana aanu Hargeysa u rarin ee ay ka shaqeyso Berbera warehouse-yadu halkan laga raro shaqo abuuris badan aanu ka sameynay. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba maray gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo maayir ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac waxaana dhamaantoodba bogaadiyeen bangigan iyo adeegyada uu qaban doono bulshada ku dhaqan magaalada Berbera oo runtii maanta xariga laga jaray hawlihiisii shaqana bilaabi doona degmada Berbera iyo gobolka Saaxilba. runtii farxad weyn bay noo tahay dawlad hoos ahaan iyo maamul ahaanba in aanu kala qayb galno farxadda xariga furka xariga jarka furitaanka Amal Bank runtii wuxuu soo kordhin doonaa shaqo abuur reer Berbera ah wuxuu soo kordhin doonaa maalgelin wuxuu soo kordhin doonaa adeeg badan oo ay bulshadu u baahan tahay. runtii sicina cala murdiya wadiin maanta waxaanu xariga ka jaraynaa Amal Bank oo ah bangi ku soo biiray bangiyadii hore ee private-ka ahaa ee ku furnaa magaalada Berbera. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay. waxa weeye Berbera waxay noqotay meel goob ganacsi bay noqotay bangiyo badan baa ku soo kordhay kanina waa ka mid intaba waan hambalyeynaa. waxaan doonayaa laba qodob inaan midna bangiga idhaahdo midna aan dadweynaha idhaahdo. bangiga waxa weeye sidii bangiga u shaqeyn jiray de waad wadadeedii wad haysaano waxa weeyaan Amal Bank waa caan Amal Bank waa la yaqaanaa Amal Bank waxa weeyaan bangiyadii dalka ka shaqeynayay uu kamid ahaa. imika ay qaabka u shaqeeyaan ee muraabaxadu ay u badan tahay haddaad fiqiga eegto ka soo heli maysid. nin Saam Maxamuud la yiraahdo doctor ahaa oo reer Urdun ahaa ayaa 1978kii fidiyooday sheekhi bank ka socday 1973 Axmed Najaar bangiga uu sameeyay Masar ka sameeyay mushaarako ku salaysnaa muraabaxadan beriga qaabkan laguma dhaqmi jirin. marka banka horumarinta islaamka beriga iyo Dubai Islamic Bank oo cusbaa ayaa nin scholar oo alla khayr ha siiye reer Urduni uu magaranaysa uu ikhtiraacay. waxa muhiim oo bankan Amal anigu aan ku amaanaya kasoo baankan u dhaxayno ninka boorka u sareeya waa nin PhD ku haysta Islamic Economics si fiican u fahamsan taariikhda
iyo duruufaha ku shaqeeyaan bangiyada islaamiga waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay bangigani qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Berbera waxaan u soo jeedinayaa reer Berbera halkan laga sheegay dhalinyaradii magaalada waa la idin shaqaaleysiiyay bangigii inaga la inoo dhiibay waxa la naga rabaa inamada inaan markaysaa meesha ku baneenin inuu garab istaagno la shaqeyno bangiga account ka furano maalgelin ka qaadano haddaynu soo sameeyno bangigu shaqeyn maayo inamadana Berbera hadii lagaga tagaya oo iyaguna ku shaqo beelayaan meesha marka inaynu garab istaag inaguna sameeyno la naga rabaa annagu halka waxaan ka ballan qaadaynaa haddaan nahay Shibil Line-ka inaanu bangiga si dhow Maxamed Ali Nuux telefishinka caalamiga Gobonimo TV magaalada Berbera